annaka iskala awoodad waxa dhismaya annaka dhisanayna yaan leedin sheekaynin dawladuna waa fashilantay way ku fashilantay way ku ceebaysan tahay nagama hor iman karto wajigay daboolanaysa halka mid ee nasiib darrada aan ku tilmaamayo waxay tahay in qofka siyaasiga ee doonaya siyaasadda inuu istaago in ay siyaasadii ka gashay hogaankii ay ka gashay mas'uuliyadda in loo dhiibo oo ku rabo inuu dalka caayo inuu dawladnimada ceebeeyo inuu maxaan ku raraa ummadda Soomaaliyeed magaceeda hoos u dhigo inuu ka raadinayo siyaasad iyo maxaan ku raraa hogaan iyo darajo inuu ka raado waa nasiib darrataas siyaasadda dadka iyo dalka u soo bandhigo xor ayaa tahay ra'yi siyaasadeed oo dalka wax looga bedelayo oo dadka noloshooda wax looga bedelayo oo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ay leedahay meesha maanta ay joogto kor looga sii qaaday laakiin inta yarta ay haysato iyo hay'adaha iyo nidaamka yarka dawladnimada ay bariyaan ummadda Soomaaliyeed soo dhisatay ceebeyntooda ha ka raadinin inaad maxuu ahay mansab iyo maqaam iyo darajo aad ku gaarto dawladda xagashadeeda maxaan ku rahay hay'adaha dawladda xagashadooda ummadda Soomaaliyeed ceebeynteeda maalin walba hoos u sii dhigisteeda ummadda Soomaaliyeed maalin hal qof oo kor uga qaadi kara ma jiro aadna uga ma qaadi kartid kuwa ka horeeyay uga ma qaado kuwa ka dambeeyana qof ummadda kaligeed meel ka qaadi kara asuweyna waxaan ka qabnaa qaabka doorashada loo wado in khilaafaad xoog badan ay keento oo mararka qaar gaari kara dil siyaasadaysan inuu ku dhaco dalka Soomaaliyeed waxaan u baqaynaa cabsiweyn u qabnaa odayaasha dhaqan waxaan cabsiweyn u qabnaa dadka sarta siyaasadda ku jira waxa waaye runtii amnigooda arrinta aad ugu walwalsanahay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu noo fududeeyo maaragtay maxaad u jeedaa amnigooda waan ka walwalsanahay ma qorshayaal jira maada amnigooda waa ka walwalsanahay ma jira dalka amnigiisa ma sugna marka laga soo bilaabo dhaqameedyada iyo dadka xildhibaanada noqonaya u tartamaya iyo dadka madaxweynimada u tartamaya dhamaantood amnigooda khatar ayuu ku jiri karaa maxaa jira dalka amnigiisa wax weyn siyaasiyiinta saaxiibada waxaan leeyahay adiga isdaaway si aad dalka u daawaysid niyadsan qalbisan la imaawo adigu isboogadhay si aad dadka Soomaaliyeed aad doonaysid inaad siyaasi u noqoto hogaanka u noqoto aad u boogadhaydo amaan afkaaga ka xiga Soomaalidu kuma maay jirtay wanaaga dalka inaan sheegnahay afkeena naga xigo ceebta dalka inaan anagu sheegin cadawgeena sheegay waa beentii inaan dhahnaa laga raba waa runtii inaan dhahno horkacno durbaanka u tunay sax ma aha dawladda Xasan Sheekh maalin aan gabar reer galbeeda aan dawladdan xumaanteera aan u sharaxay aniga si oo dadkaas inaynan ugu taageerin anigoo ku dadaalay ayaan waxaan iri waa corruptionista dawladda meeshaas markaan waday joog tiri ma ahanay tiri ma ahan corruption lotteries waayay tiri waa tuugay tiri والله بالله تلا أنا بين وتوجيتي إذا كمان فهمتني corruption كوحبالك على جوستاهيتي ها corruption نين كان بقول كنا دولار كود دراية ولا سوق أردي ثمانات كريبة ثمانو كوريبة إلا خلطوا كوبادا سجاشنا أساق هذا مدنا وحبات كهلي ما Soomaaliya waa dal dhaqaaqay hor u socday caalamkana hortiisa ku dhaqaaqay oo maanta adduunyadii oo dhan ay qirayso Soomaaliya inay dhaqaaqdo wiil Soomaaliya inuu jidka inta soo istaago u yiraahdo maya maanan dhaqaaqina carradan galgalanayna dhiiqadan ku dhex jirnaa xaggan ka dhacnay waan liidanaa waan xunnahay maya in dadka Soomaaliyeed saxaafadda xorta ah ee ummaddu ay ku faanayso maanta aanay dalal badan oo xor ah oo Afrika oo burbur iyo colaad aan Soomaali aanay lahayn oo ummadda Soomaaliyeed maanta loo isticmaalo muxuu ahaa in ummadda lagu karaamo tiray sax ma ahan saxaafaddana waxaan leeyahay walaalayaal qowlka fiican dhagta Soomaaliyeed wax fiican maqashiya indhaha Soomaaliyeedna wax fiican tusa ayaan leeyahay madaxweynaha waqtiga waa ka dhamaaday mana aan ogin qaab sharciyeed oo madaxweynuhu ku sii joogi karo Xasan Sheekh way ka dhamaatay waqtigii dadka Soomaaliyeed ay ku jaangooyeen inaad maamusho dalka ama aad hogaamiso hadda waxaa la mid tahay musharaxiinta la mid inta kale musharaxaad la mid marka kursiga waad ka degaysaa markaad ka degto hadda villa Soomaaliya dadkii u dhaxaysay waad ka soo baxaysaa iyadana baabuurta buruufyada inaguba ma haysano
meesha aan joogno meel ka xun lagu geyn maayo meeshaas markayatiisa maanta markii ugu horreysay taariikhda waxaan ku faanaynaa in dowlad Soomaaliyeed oo la soo dhisay xilligeedii uu dhammaaday dowladdaasina ay dadaal u gashay sidii si nabad ah ay muxuu ahay dadka Soomaaliyeed ugu soo celi lahayd talada si ay ugu dhiibtaan dad kale oo ay ku kalsoon yihiin maxaan ku rahaa hoggaan iyo mandate cusub iyo xilli kale oo cusub oo dalka lagu soo hogaamiyo oo sharciyadiisa inay siiyaan dalka waxaan soo marnay waqti kooban oo dib u soo dhisidda iyo dowlad soo dhisiddu ay koobneed maanta way baahday waa ballaaran tahay dadka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa doorashooyinka si sax ah oo nadiif ah oo colaad ka fog oo musuqmaasuq ka fog oo ku shubasho ka fog oo maxaan ku iraahdaa dulmi iyo isriixriix muxuu ahay ka fog haddii ummaddu ay u qabato ummadda Soomaaliyeed mustaqbal aad iyo aad u cad waxay ka gudbaysaa god weyn oo qaaran oo loo qoday ayay ka tilaabsanaysaa doorashada waa muhiim inay si sax u dhacdo waa muhiim inay sida ugu fiican ee aan awoodi karno ee aan u qurxin karno inaan isdoorano inaan isu doorano sax waay waana u dhacaysaa raalli kama ahin in qaab darro iyo xumaan iyo ceeb dalkan wax u keeni karo oo dhan in lagu dhaqaaqo dalku meeluu ka yimiday wuu socdaa meesha uu maanta marayna uu ka sii gudbayaa ilaahay idankiis runtii la safanaynaa shacabka Soomaaliyeed labadii maalin la soo dhaafay wadooyinka laga xiray isbahaysiga isbedel sameynta ee musharaxiinta iyo madaxda xisbiyada siyaasadda iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed mukul ay ku jiraan waxaan u soo baxnay oon u soo soconnay oon bannaanka u soo istaagnay oon daljika daahsan u nimid inaan la dareen la wadaagno shacabka Soomaaliyeed la safanno wadooyinka xiran in loo furaan rabnaa marmarsiyo ma aha igad shirkeeda madaxweynaha ma ka aqbalayno ku marsiyooda igad shirkeeda xalaniya agtiisu ka dhacayaa dadka wadooyinka ha loo furo haddii kale timiri waxaa la yidhi lafaa ku jirta diidmadaas madaxweynaha wuxuu diidan yahay muddadiisii yaa dhammaatay mudaaharaadka uu diidan yahay dacwada aan maxkamad geyno uu diidan yahay inaan ka soo horjeesano uu diidan yahay dadka wadooyinka ha loo fur haddii ay isku dayaan madaxda dowladda inay wadooyinka xiraanne waxaan ugu baaqaynaa shacabka inay wadooyinka furtaan dadka Soomaaliyeed ka codsaday maalin dhaweyd dulqaad arrinta ku saabsan shir goboleedka igaad ee madaxda igaad ay isugu imaanayaan magaalada Muqdisho waxaan mar kale dadka leeyahay arrintaasi aan soo dhaweyno dulqaad aan ka muujino aanan u daalqaadana cadawga Soomaaliya inuu kufiyo oo uu ceebeeyo doonayo yaanan gacan ku siinin aan ka hortagno aanan ka dhicino ka celino dalkeenu maanta in dadka Soomaalida ay u soo istaageen taladii oo qof walba oo dadka Soomaaliyeed hoggaankiisa iyo taladiisa oo qayb dhexaad ka qaatay inuu rabo waan ku hambalyeeynaya dadka dhalinyarada ee siyaasiyiinta ah ee Soomaalida ee arrinta